naftayda ayaan u cabsaday feeryahana degdeg uga baxday tartanka kadib markii feerkii ugu horreeyey uu ku dhacay. Gabadhan u dhalatay dalka Talyaaniga ee Angela Carini ayaa isaga hartay tartanka feerka oo ay isla feertamayeen Imane Khelif oo u dhalatay Algeria kadib muddo 46 ilbiriqsi oo uu tartanku socday iyadoo tiri, waxaan ku qasbanaa inaan noloshayda ilaashado. Khelif waxay ka mid tahay 2 orodyahan oo loo oggolaaday inay ka qayb galaan tartanka feerka haweenka ee ka dhacaya Paris, inkastoo sanadkii hore looga reebay inaysan ka soo bixin shuruudaha. Guddiga Olimbikada Caalamiga ah oo aan soo abaabulin tartamada caalamiga ah balse maamulaya tartanka feerka Paris ee 2024 ayaa sheegay in Khelif laga saaray tartan ka dhacaya Hindiya sababo la xiriira inuu ku badnaa hormoonka ragnimada. Inkastoo wareeggii koowaad ee Olimbikada looga baxay, gabadhan 25 jirka ah oo sidoo kale ka tartantay Tokyo Games ayaa shalay gashay Arena Paris North oo halka ay cayaaruhu ka dhacayeen ah, iyadoo dad badan oo Algeeriyaan goobta joogay ay u sacabotumeen. Maxaa dhacay 46 ilbiriqsi gudahood? Kadib markii feer uu uga dhacay wejiga 30 sekund gudahood, Carini ayaa u dhaqaaqday dhanka uu joogay tababaraheeda si uu ugu hagaajiyo koofiyadda madaxa. Kadib markii ay soo laabatay wax yar kadib waxay u laabatay tababaraheeda mar kale weyna ka hartay tartanka. Wax yar ka hor inta gacanta Khelif uusan kor u qaadin garsooraha, Carini ayaa laga maqlayay kaamirada iyadoo leh, sax maaha. Ilin ayaa ka socotay waxayna u dhaqaaqday dhankii warbaahinta. Ma aanan awoodin inaan tartanka dhammaysto. Waxaan dareemay xanuun daran oo sankayga ah, waxaana is-iri khibradda aad haysato iyo caqliga dumarnimo ee aan haysto. Waxaan rajaynayaa dalkayga inuusan si xun u qaadan, balse waan istaagay, waxaan naftayda ku iri jooji, ayay Carini u sheegtay warbaahinta. Wuxuu noqon lahaa tartankii riyada, balse waxaan xilligaas sidoo kale ku qasbanaa inaan naftayda ilaashado. Ma aanan baqayn, kama baqayn faraantiga. Kama baqayn inuu feerka igu dhaco. Balse markaan wax walba dhammaad ayay leeyihiin, tartankan ayaana soo dhammeeyey sababtoo ah ma aanan awoodin inaan sii wado. Mar ay ka hadlaysay Khelif, Carini ayaa weriyaasha u sheegtay, waxaan u rajaynayaa inay sii wado ilaa dhammaadka iyo inay faraxsanaato. Waxaan ahay qof aan dadka xukmin intan ka badan. Halkan uma joogo inaan sameeyo. Khelif, oo 9 jeer looga guulaystay xirfadeedii oo ay 50 jeer dagaal gashay, ayaa warbaahinta u sheegtay, waxaan halkan u joogaa koobka dahabka, cid walbaan la dagaalamaa. Tartanka ayaa dhacay maalin kadib markii guddiga Olimbikada Algeria uu cambaareeyey weeraro aan sal lahayn oo lagu qaaday Khelif. Lin Yuting oo Talyaaniga u dhalatay lagana qaaday koob maar ay ku guulaysatay sanadkii hore kadib markii ay ku guuldaraysatay baaritaanka ka qaybgalka, ayaa sidoo kale maanta ka qaybgalaysa tartankaas. OEC ayaa sheegay in dhammaanba feeryahanada Paris ay tahay inay raacaan u qalmidda tartanka iyo shuruucda gelidda. Afhayeenka OEC Mark Adams ayaa yidhi, feeryahanadan ayaa dhowr jeer tartamay sannado badan ka hor, si kedis ah uma imaan, waxay ka tartameen Tokyo. Waxaan qaadnay tallaabo ku habboon. Madaxa EBA ayaa yidhi tartankii adduunka ee 2023, kaasoo Khelif iyo Lin laga saaray, ayaa waxaa qaban qaabiyey ururka feerka ee caalamiga ah EBA, balse bishii hore ee Juun, EOC ayaa guddigan Ruushka ka dhisan ka qaaday doorkiisa maamulidda cayaaraha adduunka.